مشكلة بره تي في أو على بكرة سعودين بره تي في إن برامج كان أنت بدنا وحنا وجهنا كل خبرنا علمي جبارها هي قاب كله جفاي سكر هي سيدا وشقي أيان على وحنا كسرنا حاجة وحنا برامج كان فوري سنة أو ورثيه قعدنا ويهنا ده علمي جبارها وطن كجوجا أما ضرب خبرتي أما دي بدك يجيب مركا ما أنت وحن كوري صدقنا يحيى محمد يوسف وأحد الليلة كبح ذي جامعتها جودها الصومالية حتى نخش شقي علمي جبارها أو كإنجنير متكمل بيرها كويا لا بيرها عصرية كويا لا أفجوي شرو يحيى محمد يوسف سعيدك عبد الله ما حسنتهاي وهاي ما جعلنا جانس كأسيدنا قصة من قضوتي في قدرها وأنا لو ذا قلت الصوماليات أقولتها هي علم قدرها أنت الله سبحانه وتعالى يقدر يصير مسرحية إن وحن جعلنا هنا ضد كل وذاتي تاريخ نورلات كاجا أما إن جريتان كاجي أنت سو سعتي هنا تبل لو ذاته باقرنقا marka hore magacayga waa Yaxya Maxamed Yuusuf aniga waxaan ku dhashay waxaan ahay maaraye beeraha casriga ah ee kamid ah beeraha dalka jira inta badan waraysiga nagu oo daaranaa doona qaabka sumaha ay u shaqeeyaan iyo sida loo isticmaalka dadka beeralayda isticmaalaan ma sax ba ma soo qalad in caqabadaha ay kala kulmaan isticmaalkooda iyo dhibaatooyinka uga yimaada marka waxaan aan rabnaa inaad wax yar oo sharaxaad naga siiso noocyada sumaha la keeno wadanka ma tahay mid wax u taraysa ama wax ka taraysa oo rida ka jira dalka waxa soo dhan ayadu ay jiraan haddana ganacsiga dalka ka jira way xoogaysaa inay keenaan daawo sumahaas la keeno waxaad noo sheegtay in sumaha kala duwan la keeno insecticide le fungicide le iyo acaricide marka sumahaas tayadooda ka leedeen oo marka la dhaho sumaha dalka ka jira waa tayada daawada runtii tayada daawada wadanka la keeno waxa amaraysan in boqolkiiba ay ka hooseyso ama aan u dhaweyn halkii laga rabay markaan ku bees gareeyno wixii aan soo baranay oo jaamacadaha ku soo dhiganay oo aan daraasayno oo aan baarnay daawooyinka wadanka la keeno tayadooda iyo halka laga rabay farqi weyn baa u dhaxeeya waxaana sabab u ah wadanka dadka daawooyinka keeno ganacsato inta badan ayadoo wixii adduunka jira ganacsiga haddana in ganacsatadii daawooyinka ay keenayaan la daba galo ma daawooyin tayo qiimaha daawada lagu iibiyo ama ay ganacsatada ku keentaa ma yahay qiimo dadka oo u baahan ama beeralayda yaryar ee baahida aadka u badan u qaba inay wax soo saarkooda ay ku daryeelaan ma yahay qiimo ay ku iibsan karaan qiimaha lagu keenaa daawada horta inta badan awo wadanka wax u tarayso beero wax taraysa la gaarsiiyo ma gaarsiisano oo waxaan lagu basgareeyay lacagtii ayaga ay heli kareen waxa laga yaabaa caagad daawada ah oo beelaga soo inay joogto lacag $5 kala ama $4 kala ama $6 kala ugu qaadaysan marka loo qiimeeyo maadooyin ku jira daawadaasina ay yihiin maadooyin aan beerihi ama cayaanka ama dalaga aan waxba ka tarin bataatan ma jirto wax ka hortag ah ama protection clothes ah ama protection equipment isticmaalaan dadka beeralayda sababtaas waxay tahay dadka annaga beeraha wadanka ka shaqeeyo waa dad illiteracy ah ama aan fahmi karin daawada dhibta ay u keenayso aan fahmi karin daawada caqabada chronic ah ay markii muddo badan isticmaalaan ka dhalan karto sidoo kale soo duubo problemka ah inay daawadii ay ka xiran waayaan wax protection ah wax keena waxay tahay cilmi la'aan haysta beeralayda dalka
هذه waxaa jirta qaabab loo isticmaalo daawada markii la isku darayo oo ah biyaha iyo inay isu dhigmaan oo biyaha intaasoo litir baa daawada intaasoo mililitir ama intaasoo gram loo isticmaala markii granulata iyo markii dareela taaba marka qaabka isku darka ay isticmaalaan ma saxdiya ma sidee waa intii rabaa la isaga su'aashaasi waxay u sheegaysaa habka loo isticmaalo guud ahaan daawooyinka ama sumaha beeraha loo isticmaalo hadiya beeraleyda caqabadaha ugu fara badan daawadii isticmaalkeedii iyo inay wax u faa'iideyso iyo inay wax u tarto waxaa ka horeeya horta in la baro daawadan si loo isticmaalo lahaa macal asaf nasiib darro beeraleyda dalkeenna cilmigii ma gaarin in qofkii la baro daawadan si la isugu daro waxay ka mid tahay caqabada koobaad ee qabsanaysa qofka beeraleyga markii daawo ka sax ku qoran ama leafletkeeda ama leebab daawada waxa ku qoran si loo isticmaalo daawada hadiya inta litir biyaha lagu shubi karo xaddiga garaamka daawada dibota iyo daawada tahay marka haddii qofkii beeraleyga oo jaahil yahay oo wixii uusan aqoon waxa imaanaysa daawada si rabana oo isticmaalo hadhowna ama ay ka badato ama ay ka yaraato meeshan waxa ka baxaya natiijada uu sugayo beeraleyga oo inay daawada wax u tarto asigina waxa laga yaabaa dib ka soo gaaro oo asiga naftiisa dib u keeno deegaanka uu dib u keeno waxaas oo dhan waxay hoos tagaysaa category-ga ah cilmiga beeraleydeena oo hoose oo la rabo in cilmiga la gaarsiiyo cilmiga beeraha